maxaad kala socotaa daawade arooskii mucjisada noqday ee Marwaan iyo marwadiisa Seynab Xaadow waa arooskii ugu saameynta badnaa ee abid soo mara Muqdisho kaas oo mutaystay inuu hoggaanka u qabto aroosyo badan oo saameyn lahaa kana horeeyay sida Saami Cadde iyo hodheelkii Ileyd Liibaan Jaamac iyo hodheelkii Afriin Cabdiraxmaan Juveeze iyo hodheelkii Ileyd iyo Mrs Fardowsa Kunaso iyo Malushaam hayga sugin inaan kaaga sheekeeyo xafladooda meherka ee subaxii jimcaha taariikhduna ay ku beegneed 29ka bishii tagtay ee 2022 inkastoo aan la dafiri karin midda ay isku waqtiga ahaayeen ee Cabdiraxmaan Juveeze iyo hodheel Ileyd oo ay buuxdhaafiyeen xildhibaanadii Waceesle haddana iska ilow inaan ku tiriyo heesaayaashii ruxay Silver Star goob ku habboon xafladaha aroosyada nasiinada iyo deganaanta kuwaas oo qudhooda la amakaagay waxa halkaasi ka dhacaya halka Eeshiyaankii ka howlgalayay ay afka gacanta saarteen iska dhaafa iska saartaane sidaasi waxaa yiri shidane balse maxaa dhacay maalintii saddexaad ee dumarku ay aadi jireen in ay la dabaaldegaan caruusadda halkan eeg waa Marwaan iyo raggiisii hormuudka ahaa xafladdii hirgashay milyaneerkii iyo maalqabeenadii shidane oo shidaayay maslaxa shidan baakaa oo hal hees keliya ku heesa aroos kasta adigoo la yaaban sow cali muumin halkaas uguma jeedid malaha waxaad istiri ma qarax baa la tabinayaa laakiin ogow waa rafiiqiisii Marwaan waxa uu wakiil ka ahaa meherkii cali muumin ee dumaashi marwo la jecel yahay ayaa maal loo huraa ileen raggu mid baa garan og micnaha nolosha iyo macaanida dumarka balse gabaray inta aad marwo u noqon lahayd mid aan guurkaba micnihiisii garanaynin ka waran haddaad guurkaba u goyso gurigiina iska joogto xitaa haddaad doonto guumeys noqo guryo sama warkeeda iska ilow haddaan sidaan lagu yeelaynin waa habeen mahadhaya kalgacal maankeena ku reebay marnaba aan naga go'aynin inta aan ku kulmi doono xaflad aroos midaan lacayn ah kolleyba arki maynee waa soo saaristii Farxiye Muraad iyo habeyntii Deeqa Qaasin kuna darso midowgii mataanaha Muqdisho mid qura ayaa ka hartay waxaan sugnaaba waa aroos mucjisaysan oo Muqdisho ruuxa mardhow